الحمد لله. السلام عليكم أصحابتي channelkayga ku xiran oo markale walaashin Saara channel iyo muuqaal cusub waa la kala mashquul asxaabteyda cafwan maanta waxaa idin wadaa muuqaalkaas quruxda badan leh waa mini pizza ama pizza yaryarka ah waxyaabihii aan ka diyaariyay qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan qaabkaas quruxda badan la ayuu ugu dambeyn ku soo baxay ahbaabteyda waxaa halkan ku haystaa asxaabteyda baaquli waxaan ku soo shubay hal galaas ama hal bakeeri caano qandacan ama caano diiran kadib waxaan ku soo daraa insha Allah hal qaando yisti ama fiixiso intaas ayaan isku qasayaa kadib waan daboolayaa 10 daqiiqo camal insha Allah markay noo daboolnaato ayaan isku soo laabaneynaa biidhnillah asxaabteyda 10 daqiiqo kadib sida wada aragtaan waa isku soo laabanay haddana waxaan ku darayaa insha Allah waxyaabihii kale aan ugu talagalay burkii ayaan ku darayaa sida wada arka burka qiyaastii waa 2 galaas ama 2 koob bakeeriga shaaha lagu cabaa qiyaasta kugu filnaadaa taqaanid maasha Allah 2 qaando sonkor ah waxaan kaloo ku daray wax yar oo cusbo ah 2 qaando saliid ah intaas ayaan isku soo qasaa insha Allah wax kale ma ku soo daray biidhnillah si fiican markii aan iskugu soo xashoonaad iskugu soo dhexgeliyo ayaan isku soo laabanina insha Allah qaabkaas ayaan ku soo dhameeyay ahbaabteyda sida wada arkaysa si fiican ayaan isku soo dhexgeliyay cajiinna waa qasitaanka ama xashida haddana waxaan kor wax yar ka marmarinayaa saliid si uusan baaquliga iga qabsan insha Allah haddana waxaan soo diyaarinayaa insha Allah qudaartii pizza waxaan dabka soo saartay digsi sida wada arkaysaan waxaan ku soo shaqay qiyaastii saliid yar oo 2 qaando camal ah waxaan ku soo daray basal markay saliidii kululaatay kadib waxoogaa kadib basashii markay dabkii saarnaatay waxaan ku soo daray chicken aan horay u soo diyaariyay oo aan soo jarjartay haddana waxaan ku soo darayaa sida wada arkaysaan kabsar iyo toon aan isku soo diyaariyay waxaan kaloo ku darayaa filfil yar sida wada arkaysaan waxaa jeceshahay ku carabsan kartaa dib malahan waxaan kaloo ku soo daray wax yar oo cusbo ah intaas ayaan isdhex marinaya insha Allah haddana waxaan ku soo daraa insha Allah tumaarig ama huruud diyaarka ah oo organic oo cuntada lagu daro qiyaastii haddii aadan rabin waa iska dayn kartaa xidhibe malahan qaabkaas ayay noogu soo bislaanaysaa insha Allah haddana waxaan usoo laabtay xaggii cajiinka naqaska ayaan ka saaray waan soo fidinaya insha Allah sidaa wada arkaysaan markii aan soo fidiyo waan soo jarjaro insha Allah ayaan isku soo laabanaynaa biidhnillah qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah haddana waxaan bilaabayaa inaan jarjaro asxaabteyda qaab alqaafka jecesha ayaa u jaran kartaa iyo waxa loo haysto ku jaran kartaa xidhibe malan markii aan soo dhameeyo saxanka soo saaro ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah qaabkaas ayaan ku soo dhameeyay ahbaabteyda saxankii ayaan soo wada saaray sida wada aragtaan halkaan waxaa ku haystaa mozzarella cheese oo aan soo hoolay baaquliga aan ku soo shubay tomato sauce chickenkii aan soo diyaariyay markii uu soo bislaaday kadib hal xabo tomato aan soo fiiqay aan soo jarjaray barbarooni ciyaalka ayaga codsadeen mana jecla basashii waxaas haddii aad jeceshahay waxyaabo kale ku darsan kartaa haddana waxaan bilaabayaa sida wada arkaysaan ahbaabteyda inaan pizzadii saxankii ugu diyaarsaneed ama cajiinkii pizza oo saxan ku soo diyaariyay aan ku soo dardaro qudaartii ama wixii aan ugu talagalay waxaan ku soo bilaabay tomato sauce-kii aan marinaya sida wada arkaysaan markii aan soo mariyay kadib ayaan qudaarta kale oo idil korka ka soo saaraya insha Allah qaabkaas ayaan ku soo dhameeyay ahbaabteyda sida wada arkaysaan haddana waxaan ku soo dardarayaa oo ka bilaabay chickenkii sida wada arkaysaan chickenkii ayaan ku soo shubayaa
kadib waxaan kusoo daray tomaatadii diyaarsaneed oo aan soo jarjaray, kadib barbaroonigii sidaa wada arkaysaan. markii aan kusoo dhameeyo waxoo dhan macal jiisa ayaan isku soo laabanina insha Allah. qaabkaas ayaan ugu soo dhameeyay qudaartii oo idil asxaabteyda. saxankii ayay diyaar ku tahay. waxay hadda u baahan tahay ma ay sugtaaba biizada waa in ofinka la geliyo ama foornada. markii aan ofinka ka soo saaro ee diyaar noqoto ayaan isku soo laabaneynaa biidhnillaahi raxmaan. qaabkaas ay ugu dambeyn ku dhantahay biizadeeni maanta axbaabteyda ay ku soo baxday maasha Allah. asxaabteyda indhiin aadii macalna hadaad nagu cusubtahay soo dhawo please subscribe haddii hore inoola joogtay oo ka heshayna muuqaalka sii share garee asxaabtaadii eheladaada. wixii fikradaan xagga commentiga igu soo qor. waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. jazaakumullahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.